halkani waa goobta ay ku kala bixeen dadweynaha Turkiga waana goobta loo yaqaano xarunta baarlamaanka ee dalka Turkiga ama sida shacabka Turkiga u yaqaanaan Turkiga weyn taasi oo waqtigaasi uu ka socday shir muhiim ah dalka Turkiga genel kurulsal dhabahaantii markuu dhacay qaraxa koowaad xubnaha baarlamaanka way iska sii wateen iyadoo meesha qiiq badan qariyay laakiin waxay kadib waxa dhacay qarax labaad waxana nin walba go'aansaday inuu cararo meesha uu geli karo dhabahaantan xataa xilliga maanan diyaarin meel ay ku dhuuman karaan mudanayaasha baarlamaanku waayo waxaanu filaynaa in ay xubnaha inqilaabkooda soo weerari doonaan baarlamaanka xaqiiqatan dhacdo hore u dhacday ma ahayn waa libaad moodtay marka aad u eegto dhacdooyinkii hore waayo dhammaan wixii inqilaabay Soomaaliya dalka Turkiga xataa tii dawladda Cusmaaniyiinta laga soo horjeeday marna ma dhicin wax noocan la mid ah ama in la beegsado golaha baarlamaanka ama golaha shacabka hadba sida loo yaqaano horena ma soo dhicin laakiin tani waxay ahayd mid bog cusub u furtay taariikhda Turkiga halkan waxay xafiis loogu talagalay madaxweynaha dadka ku qaabilo halkan waa masaajidkii loogu talagalay martida dadka ku qaabilo qabahaantii iyagu may ogeyn in madaxweynuhu goobtan ka maqan yahay waxaanay soo galeen halkani waxaana si wanaag ah inay toos aanay soo weerarin dhanka fiilada oo deganaa madaxweynuhu waqtigan uu talagalnay laakiin ay u dhaqaaqeen dhanka kale halkan aan ku sheegayo laakiin waxa la yaabahayd sida ay halkaas rasaasta uga fureen maadaama ay cidmo beesha joogin bal xagan ay aadu sida rasaasta uga fureen dhabahaan way jirtaa marka taasi waxay ku cadeynaysaa in xubnahani wax badan oo ku talagalay haysanin ama saacido badan aanay jirin taasina uu ka badbaaday madaxweynaha dalka Turkiga dhabahaantii dagaalka ku xooganaa habeenka Istanbul wuxuu ka dhacay xarunta golaha deegaanka horteeda waxaana halkaas ku shiiday 17 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 50 qof oo isugu jira shacab iyo xubniga ka shaqeynayay golaha deegaanka waxa uu dhacaa bartamaha Istanbul gaar ahaan goobta loo yaqaano xaafadda loo yaqaano Fatih taasoo ku taala bartamaha magaalada Istanbul taasna waxay keentay in xubnaha inqilaabka wadaya iska hor yimaadaan iyo shacabku oo halkaas ay isaga hor yimaadeen si ay u qabsadaan goobtaasi laakiin ay ku guuldareysteen ugu dambeyntii dad badan ay ku dhinteen 17 qof gaadhay kabus dolu saatlerde silahla tehdit ederek bir bildiri okumamı istediler. kadib markii ay baahinta ku soo noqotay telefishinka rasmiga ee Turkiga waxay xubnaha inqilaabku qabsadeen goobaha laga hago internetka iyo sidoo kale telefishinada dalka Turkiga iyagoo oo isku dayay inay jarjaraan dhammaan xadkii iyo wixii isku xidhayay internetka iyo telefishinada dhabahaantii waxay isku dayeen wax walba damiyaan internetka wada ka saaraan idaacadaha iyo telefishinada ay damiyaan laakiin nasiib wanaag waxa jirtay in aanay aqoon lahayn xubnaha la socday ama aanay lahayn saraakiil diyaarsan fulinta hawshan iyo sida loo macaamilay qalabka meesha yaala taasina waxay keentay in ay loobaan ku dhawaad 10 telefishin oo door muhiim ah ka ciyaaraya baraarujinta shacabka iyo xogta la soo gudbinaya hadba sida wax soo dhacaan markay soo dhiibtay kaarihi ugu horeeyay mataankii ugu horeeyay soo dhiibay waxa dhacay in iyagoo dhexdooda kala jabaan oo kala shakiyaan taasna waxay keentay in qaar badan ka mid ah ay soo dhiibin balse waxa ku madaxadeegay inay soo dhiibi waayaan saraakiisha hogaaminayay kuwaasi oo goor dambe soo dhiibay markii ay la dagaalameen xubno ka mid ah ciidamada gaarka ah ee sida gaarka u tababaran ee dalka Turkiga leeyahay dhabahaantii waxay isku dayeen diyaaradaha helikobtarada qaar ka mid inay duqeeyaan qasriga jamhuuriyadda laakiin waxa la dagaalamay xubno ka mid ah gaarka ilaalada
qasrigaasi iyagoo oo soo riday qaar ka mid a diyaaradihii gaar ahaan mid bay ka soo rideen kadibna waxaa dhacday inay dib u noqdaan isla mar ahaantaasina isku dayeen inay ka fogaadaan goobta waxay isku dayeen inay soo noqdaan oo albaabka dambe ka soo wareegeen iyagoo wata 3 kaare iyo 3 gaari oo nooca gaashaamana iyo diyaarado laakiin way ka hortageen shacabka iyo waxa ka hortagay ilaalada gaarka ee qasriga ugu dambeyn waxay ku guuldareysteen inay soo galaan habeenkii inqilaab ku dhacay qasriga hortiisa xubnaha jooga ka mid ahaa wiilkan maxamed loo yaqaano isagoo waqtigaasi ka soo baxay dhakhtarka waxaana uu gaadhi ku yimi isla waqtiga inqilaab ku dhacay qasriga hortiisa taasina waxa ay keentay inay dhaawacmaan isaga iyo 2 nin oo walaal yihiin dhabaantii habeenka aad bay dadka u tooganayeen ciidamadu khaasatan waliba saraakiisha silsilada ayaa rasaasta aad u ridiyay dadka tooganayay waxay ugu hanjeen dadku dib u noqdaan laakiin taasi waxay keentay in dadku ka aqbali waayaan oo ay ka sii caleysiiso oo ay ka dhagaadayaan dib u noqodkooga dhabahan annaga dhabbay naga ahayd inaan nafteeda u hibayno dalkayga aan jecelnahay Turkiga bana soo gaadhay sheegaysa in dhanka hotelka lagu socdo shakhs naga mid ah tagaya dhowr qof oo kale waxaana la kulmeen dagaal aad u xoogan oo rasaasman lagu ridiyay oo diyaar meesha dul marayaan kadib waxaan isku daynaa albaabka dambe ka baxno oo aan hotelka dhex marno albaabka dambe ka baxnay dhanka xigay xeebta haddana waxaan nolay qaar ka mid ah diyaaradihii anagana qaadi lahaa laakiin way suurtageli weyday aad bay rasaastu u badnayd iyaga ku dhowda la soo ridi gaadhay markaa meesha ka dhaqaaqeen dhab ahaantiina habeenka nolosheeda khatar baanu gelinay inaan dalkayga u badbaadino dhab ahaantii xubnaha ka mid ah annaga ayaa tagnay goobta markaan ogaanay inay hawada ku jiraan helikabtaro waxaanu tagnay xarunta ammaanka ee magaalada waxaanu ku nidhi albaabka ma xidhi kartid waxaanu diyaarinaynaa koox aad u xoogan kadib waxaana soo gaadhay war tilmaamaya in dhanka marmariis oo magaalada madaxweynuhu joogay ay ku socdaan xubno ka mid ah qolyihii inqilaabka fulinayay kadibna waxaan isku daynaa inaanu ka hortagno waxaanu diyaarinay ciidamo aad u xoogan markii ay ogaadeen inaan halkaa joogin way soo noqdeen laakiin dhibaatada ay la kulmeen ayaa ahayd inay dhex marano iyaga iyo ciidamada dagaal aad u xoogani taasina ay keentay in markii dambe ay goobta ka laabtaan si dhaqso ah yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. waxaan u go'aansanay annagoo dhuumasho ku jirnay inaanu qorno dhammaan qoraal ay ku midaysan yihiin axsaabta ku jira golaha baarlamaanka taasi waanu ku caddeynay inaanay xubin ka ahayn isla mar ahaantaas inaanay ogolay oo ay kasoo horjeedaan inqilaabka waxaanu isku raacnay qaybaha isku waafaqsan in la qoro si aanu subaxa u qaybinno oo uu bayaanku noqdo mid u dhaqan gala aan ku guulaysanay ugu dambeyntii annagoo dhuumasho ku jirnay inaanu ka gaarsiino dhabahaantii wax laga naxaa ahayd in mid ka mid ah dhalinyaradu baaskiladiisa koraysa oo ku socda dhanka xubnaha fulinaya inqilaabka si uu dadkiisa ugu horo naftiisa laakiin markii dambe uu ka soo gaaray dhaawac aad u xooggan markii aan la kulmay waxaan isku dayay inaan qaado balse aniga qudhada rasaas bay soo gaadhay oo goor dambe aan meesha ka dhaqaaqay laakiin waxaa kadib aan ku soo noqday waxaana fiidbaad u dhiigbaxay isla mar ahaantaasina aanay naftu kuga jirin oo dhintay kadibna waxaan u qaaday qayb ka mid ah dhakhaatiirta ku yaala caasimadda
si loo dhigo halkaasi oo ciddii ama ehelkiisa ama inta la helayo halkaa lagu hayo qolka meydka. ugu dambeyntiina anoo nafteeda la baqanaya ayaan qaaday, laakiin markii dambe waxay suurtagal in mid ka midii soo gaadho ambalaasyadii halkaasi ka shaqaynayay oo halkaasi ka qaado. waan ogaa inaan habeenkii aanan ku guuldarraysanayn isku dayayga aan ku badbaadina dalkayga, waayo waxaan ogaa in dhiig badan shuhaadadu ay u hortay dalkooda si ay ugu guulaystaan ka hortagga kooxahani. waxaan isku daynaa tacsiidee mid ka mid a saaxiibaday si wuxuu ugu dhaweynu ka simanahay taa, waayo dalkeennu waa midna saaran waajibnayna waa dhammaanteen. dhacay qaraxa koowaad waxay qaar badan dadka kamid isku dayeen inay goobta ka fogaadaan, balse mar daqiiqada kadib markii uu dhacay qaraxa labaad waxay dadku ogaadeen in iyaga loo dan leeyahay, isla markaasna waxay kusoo urureen isla halkii uu ka dhacay qaraxu. taasina waxay keentay in ay dad badan oo aad u tira badan halkaasi ku dhintaan oo qaar badan ku dhiig baxaan. dhab ahaantii amar toos ayuu ahaa oo ka soo baxay madaxweynaha in la weeraro garoonka diyaaradaha Kanjilaar loo yaqaano, kaasi oo isla markaasina amar uu siiyay generaalka ciidamada. waxaana si degdeg ah uga howlgalnay sidii loo qaban lahaa diyaaradaha ku hadhay xubnaha inqilaabka fulinaya si aan u degin qorshe cusub. annaguna waxaan u dejinay qorshe cusub oo in gacanta lagu soo dhigo. ugu dambeyntiina way noo suurta gashay, waxaanu soo qabanay dhammaan xubnihii diyaaradaha watay iyo kuwii dhulka joogay soo dhiibeyba. qoraalkaanu ka helnay xafiiska taliyaha xubnaha hogaaminayay inqilaabka jenaraal Turkan waxa uu sheegay in ay go'aansadeen inay isdhiibaan saacadu markay ahayd 9 subaxnimo kadib markii ay arkeen in xaaladoodu khatar ku jirto. waxaana uu sheegay in kadib shir ay ku jireen muddo ay go'aansadeen in isku dhiibaan ciidamada, iyaga oo askarta ka codsaday inay u dhiibaan isla markaantaasina ay hubka dhigaan kuwaasi oo isu dhiibaya si ay uga badbaadaan dagaalka iyo dhibaatada socota. waxaana sidaasi aanu ku aragnay qoraal uu qoray jenaraal Turkan oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha hogaaminayay xubnaha inqilaabka. Nedir? Jandarma kullanmak. Çok giderim. Murat Şerzai. Deniz Ötleri İstihbarat Başkanı. İnsan Bakar, Tuğan'a, Deniz Kuvvetleri Hareketi Yetimlerine Başkanı. Operasyon Koordinasyon Yönetim İstihbarat Başkanı. Koordinasyon Yaş Başkanı. مأمورور subaxnimadu waa ay ka gedisnayd habeennimadii, waayo waxaa jiray qoraallo badan iyo sidoo kale diiwaanno ay taariikhdu qorto maalinnimadii. taasina waxa ay keentay in qaar badan oo xubnaha saraakiisha sarsare ee dalka Turkiga ay aaminsanaadaan in guusha koowaad ay ahayd isku duubnida shacabka,
iyagoo sidoo kale aaminsanaa in madaxweyne Erdogan uu qaaday tallaabo geesinimo leh taasi oo ahayd in uu ka hortagay dhibaatooyin dhici lahaa isla mar ahaantaasina uu bixiyay amarro loo baahnaa xilligoodii waxa qaar badan oo kamid ah saraakiisha dalka Turkiga ay aaminsan yihiin isku duubni kasta oo shacab dhexmarta inay keeni karto ka hortagga inqilaab noocan oo kale sidoo kale waxa ay isla qirsan yihiin in qorshe xumada kooxda inqilaabka fulinaysa ay keentay in ay cadhoodaan shacabka dalka Turkiga isla mar ahaantaasina ay ka hortagaan inqilaab dhaca balse taariikhdu sideedaba way soo noqnoqotay dalka Turkiga ma aha markii ugu horeysay ay ka dhacaan inqilaabyo noocan oo kale laakiin waxa la isku waafaqsanay ilaa hadda sababaha fashiliyay inqilaabka balse kaliya la isku waafaqsan yahay waxay tahay in dalka Turkiga cagta saaray dhabar rasmi ah oo ah dhabada dimuqraadiyadda ee ku dhaqmaan inta badan dalalka caalamka maanta qaar kamid ah ujeedooyinka loo fuliyay inqilaabyada waxa kamid ah in ay shacabka ka haystaan taageeraya xubnaha inqilaabka fulinaya balse inqilaabkani oo ka gadisnaa inqilaabyadii hore taasi oo ay shacabku ka soo horjeedeen oo inqilaabkani dhaco waxaana ay taasi suurto gelisay in shacabku sameeyaan isku duubniyo banaanbax ay ka hortagaan xubnaha fulinaya inqilaabka iyadoo halkaas ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof kuwaasi oo hadda dalka Turkiga ka diiwaan gashan xubno shuhada balse inqilaabkani ayaa kii ka dhacay dalka Turkiga 2016 July waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu idinka diyaarinay inqilaabka dalka Turkiga qaybtiisii afraad ahaydna qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkani